galab wanaagsan saaxiibayaal sida u dhantiin meel kasta dunida ka joogtaan fadlan hadday tahay daawashada ku horeysa channelkan soo booqato subscribe inoo saar si aad ula socoto shaxdeena maalinlaha ah maalin walba aan soo dhigno YouTube-kan adaa iska leh dan marka shax walbaba oo maalin walba soo gelino si aad ula socoto fadlan subscribe saaro intaas kadib asxaabay maalmahan shaxdeena way soo yara daahdaa marka iyo cudur daara maalmahan anaa yara mashquulsan dhanka shaqada iyo dhankaas ayaan iskaga mashquulsanahay marka insha Allahna maalmo gudahood sideen hore ayaan ku soo laaban doonaa oo shaxdii waqti hore soo dhigi jirnay soo dhigi doonaa marka tan kalena asxaabay YouTube-kan inoo share garay asxaabtaada inoo share garay like soo si tan kalena comment-iga igula soo wadaag wax walba oo adiga jeceshahay inaan ka soo hadlo waan ka soo hadlayaa hadda waxa ugu xoog badan maxaa ku raada handicap asxaab badan rabto oo haddaba shaxdeena kamid ah inaan ka video ka soo sameeyo taasna waan ka soo sameey doonaa maalmo gudahood haddii alla yiraahdo waan ka soo sameey doonaa balse adiga YouTube-keena inoo share gareyso asxaab badan u gaaro wax walba aad qabtaan comment-iga igula soo wadaag meesha loo bato ayaan qiimeyn doonaa video ayaan ka soo sameey doonaa marka maanta sida ka warqabtaan ma jiraan horyaalada waaweyn ee caalamka laga ciyaarayay ma jiraan balse sida aad ogtihiin waxaa jira ciyaaro adduunka maalintii waxa laga ciyaaraa boqolaal ciyaar ayaa jira marka kuwa ugu macquulsan ayaa hadda isha soo maray 40 kooxood ayaan iga anfacay hadda odds-kana u jeedaan wallahi cadin 1.99 u jeedaa hadda ku ahaa $2.10 oo ah marka 1xbet waa taqaana markasta way qiimeynayaan waxbay ka sii dhimooyeen waa la yaabanahay marka problem waxa ugu horeysa Germany regionaliga Bayer waxa ugu horeeya labadan koox SV qoranta iyo Grother marka sida SV kooxan qoranta oo team 1 ka ah 1.42 sent ay saar halka Grother ay saaranta 6.85 sent marka guud ahaan ciyaartan waxaan isticmaali doonaa handicap kan oo ah team 1 ah u jeedaan waxa ku qoran 1.0 waa la xiray sida u jeedaan marka team 1 ayaa waxaan leenahay ma looga badinayo hal gool macna saas waa hadii ciyaartan ever ku dhamaato waa refund ayaan heleynaa hadii hal ever ay ku dhamaatana kooxan team 1-ka ay ku badiso won ayaa tahay marka sorry waxa laga yaabaa inaad si fiican aad u fahmi karin laakiin sida idin ballan qaaday handicap-kan video dheer ayaan ka soo sameey doonaa balse hadda waxa waa muhiimadu kooxdan team 1-ka home-ka joogto hadii hal ever ku badiso won ayaa tahay hadii ever ciyaartan ku dhamaatana waxa waaye refund ayaa helaysaa tan labaad waa akura Dumbarton iyo Strand marka Dumbarton iyo Strand waxa laga yaabaa in la yaaban tahay sida kooxdan $4 ayaa saaran tan $2 ku dhawaad ayaa saaran marka laakiin ugu 90% sida hadda la isku raacay wili Dumbarton inay half cambi hore ay badi karto guud ahaan ciyaartan ay badi karto ayaa la isku raacay 100% marka ani ma dhahayo way badinaysaa mana barage gelaysaa dhihi maayo ayadana waxaan isticmaali doonaa handicap kooxdan oo 2 ah oo awayga ah ayaa waxaan dhihi doonaa ever hadii ku dhamaato war refund hal iyo hadii ku badsana waa won intaas ayaan isticmaali doonaa kan saddexaad waxa waaye Real Sociedad woman iyo Bayern Munich marka Bayern Munich iyo Real Sociedad maqasho waxa ku soo dhacay UEFA Champions League inkastoo Real Sociedad aysan qayb ka ahayn laakiin balse saas ay ku soo dhacayso because Real kale ay wada ciyaar kana inta ma jirto marka UEFA Champions League balse gabdhaha waa qaybta gabdhaha tani wargelimayno inkastoo ragga Munich sanadkan aysan waqti fiican aysan ku jirin dhanka horyaalka marka la eego oo kulamada qaarna barage ay galeen kulamada qaarna laga badinayo kulanka hadda ugu dambeeyay Munich laga badiyay waliba koox yar ka badisay balse gabdhaha waa qatar lama dhahayo barage ay galayaan lama dhahayo
way badinaysaa marka way badinayaan kuwa waxaa ugu dambeeya Arsenal women iyo Ajax sida u jeedo sadar muqo su'aal ka dhan Arsenal waxaa saaran 1.4 senti waliba 24 dhuruq waa senti maaya waa dhuruq gurigeeda joogtaa home halka Ajax ay away tahay 3 saaran tahay marka guud ahaan ciyaarta waxaa ka fiicnaa dhahno way kala badinayaan maadaama dhuruq wax u wayaan marka tan ayaa ka waran 5 senti saaran tahay marka way kala badinayaan marka saas ayaa leenahay way kala badinayaan marka asxaabay guud ahaan shaxdeen halkaas ay ku soo afmeereena koodkana waa kana fadlan hadaa su'aal qabto commentiga igula soo wadaag waan kaaga soo jawaabaa tan kale handicapkana video ayaan ka soo sameey doonaa laakiin asxaabta idinka waxaad ku naa YouTube-ka inoo share gareey soo asxaabada u gaaro anagana dhiirigelin inoo u noqoto si aan markasta u soo dhigno shax 100% guna waa mahadsantiin guuleysto